السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي aad baan idin salaamayaa. Waa qaybtii saddexaad ama darsiga saddexaad oo aynu ku qaadanayno barnaamijka aynu u isticmaalayno inaan ku duubno kombiyuutarka shaashadiisa marna aynu muuqaal ku edit karayno Camtasia. Marka steebyada uu kala qaybsan yahay ayaan hadda baranaynaa Camtasia. Halkan searchiga Windows-ka waxaan siinaynaa click kadibna C aan taabanaynaa. C markaan taabano waxa soo baxaysa laba step. labada step waxay yihiin kan oo ah Camtasia recording aye halkan oo hirso waxa ka muuqda Camtasia oo loogadiisa cagaar tahay oo magaranaysa qayb kala marka kan iyo kan maxay kala yihiin dhammaan waa isku hal software laakiin waa labada step u kala shaqeeyo way kan marka kan waa hadda isaga shaqada ku wadnaa oo hadda ay kan tago on click siiyo waxa arkaysaa halkan hadda waxa socda content iyo adigu hal daqiiqo ayaan maartay duubitaanka wadnaa waa qaybtan adeegsanayno qaybtaani laga muuqato waa qaybtan adeegsanayno hadda wax ku duubayno way oo kombiyuutarka shaashadiisa hadda ay kala socotaan haye qaybtan cagaarka marka soo harto qaybta cagaarka soo kee click si waa studio dhammaa weynaa oo maartay gudihiisii ayaan tagaynaa hadda oo maartay muuqaalada ku jarjari lahayn effectiyada ku sameyn lahayn wax la ku diyaarin lahayn baan hadda gudihiisana marka waxba ma kala duwan hadda kii 18 iyo kan hadda 19 version-ka u jeedid update kaliya ku sameeyay aniga haddana inay soo galiyeen baan u maleynayaa oo muuqaalka hadda qaybtii aan kula soo degin qaybtiisa kore ayuu 19 ka muuqday laakiin ma aan hubin maadaama aan hubin dee maartay iskuma biimeyn karin waa inaan hubisaa waxa marka hore okay waxaan soo marka halkan ay ahayd qaybtan saddexda step oo أو أديكسن كرتيد برنامج كان أما صدح استيب وليه هاي أوهرية أو إنترفيس كوحويا صدح ذان نيو بروجكت إنا بروجكت عصب سمينيسو هاي نيو ريكوردين إنا دوبيتان عصب سمينيسو شاشة دا أدكو دوبيسيد هاي أوبن بروجكت ديار ثنا إنا صفرنيسو قديسي مارتا كوجو كمبيوتر كوجري أو هاري وديارسي صدح step way صدح marka mid hadda waan adeegsanayna oo recording-ka uu inoo socdaaba waa kan hadda computer-kan shaashadiisa kala socono haye new project waa midkaas haye new project marka aan dhahno new project dheh waxa loo keenayaa halkan wax video ama yaalin hadda waa studio of Faruq haye qaybta labaad waxay tahay see ayaan muuqaal halkan soo gelin karnaa halkan saa u jeedid waxa ka muuqata import media halkan waxa ka imaanay wixii media la halmaano dhan ayaa halkan ka imaanay sawir cod waxaas oo dhan halkan ka imaanayaan haye safxadda xagga aan u jeedina waa magaranaysaa qaybtii oo toolskii oo translation-ka iyo waxa aad ka sameynaysid haye qaybtanna linka u jeedina timeline-kan meeshii laga dheereynay laga gaabinay iyo qaybtii toolska oo panel toolski halka yaala saddexda step oo saddexda step marka ugu horeyso qofku maartay uu gali karo haye marka media aan dhex keeno halkan aan video keensano meeshaan double click si kadibna muuqaalkan soo qabo oo muuqaalka inuu kan ka horeeyay inuu duubnay oo maartay sida computer lagu isticmaalay ahaa open day halkan la soo dhigi doonaa meeshaan ayaa la soo dhigi doonaa waa kaas halka markii lagu soo dhigo oo soo drag and drop aan soo sameynaysaa left click aad ku soo qaadaysaa kadibna meeshaan ku sii diinaysaa haye meesha markuu sii diidi video codkii waa iswataan hadda video iyo codkiisii waa iswataan saa u jeeday video-gii waa kaas haye cod maadaama video-gii ma dhageysan karno oo maartay muuqaalkii ma sii daawan karno laakiin waxaan rabnaa points-ka aan raadinayno inaan soo dhaweyno rabno meeshaan oo kale rabno inaan shaqo ka qabanno halkaan oo kale rabno inaan shaqo ka qabanno tusaale meeshaan oo kale aan shaqo ka qabanayna waxaan soo dhaweynaynaa points-kan sharaxayna halkaas ayaan soo dhaweynaynaa meesha security oo kale ayaan soo dhaweynaynaa waxaan sameeyaa marka saan halkaan u soo dhaweyno waa inaan raadsanaa effect aan ku soo dhaweyno effect wax ka soo dooranayna meeshan animation ku qoran tahay meeshan ku qoran tahay ayaan click siinaynaa halkan video-ga shaashada waa laga tusayaa halkan animation ay ku qoran tahay ayaa dooranaysaa markaa kadib meeshan waxa yaala animation kala duwan up down left waxaas
marka ana waxaan ab iyo down ba horta inuu ku muhiimsan ab aan soo qaadanayna marka ab aan waxaan ku soo qaadanaa left click kadibna waxaan ku sii deynaynaa meeshaas calaamadan heatkan meeshu yaalo muuqaalka ku aadan aan dhigaynaa automatically muuqaalka la soo dhaweeyo markaan inaga halkan aan maanta effectiga dhignay haddaan gadaal uga qaado muuqaalka bartiisa ku noqonaya haddaan isaga dulgeeyo muuqaalku soo dhawaanaya okay inta waa kasii dhaweyn karna muuqaalka inta xoogaa halkaa qabato oo liftiga maarata liftiga haya ayaa inta xoogaa qabato marka calaamadan kuu soo baxdo ayaad haw soo siinaysaa soo jiidaysaa kadibna si toos ayaad halka u geynaysaa haye marka saa ujeedid muuqaalka aan ku noqdo hal mar oo maartay interface ka ilaaliyo halka marka marayso waxaan rabnaa inaan keeno meeshan wax ay calaamadinaya oo effect meeshan calaamadinaya diyaarsan shapes oo animation ku samaysan yahay waxaan tagaynaa meeshan oo annotation ku qoran tahay ayaan click siinaynaa kadibna waxaan dooranaynaa safxadan dooranaynaa safxadan kadibna waxaan tagaynaa kana soo qaadanaynaa kulligood waa isku wada mid laakiin kana inoo muhiimsan aan qaadanaynaa inaga rabna meesha inaan leekisino wakaas ujeed halka ka muuqda kadib dhexdaas meesha marka taa oo falaarta afrigees noqoto aan soo qaadaynaa kana ku dul aadinaynaa marka kana ku dul aadinaynaa kadibna kana jiidana meesha xoogaa waa qurxinaynaa waa leekisinaynaa xoogaa yar qurxinaynaa markaan yar qurxinaynaa geesaas saas uga qabanayna meel kan lama qabanayno shift iyo waxa qaban mayno bas inta markaan ku aadino colorka ka bedeli karaa halkaan oo colorkiisa ka bedelaysaa kadibna meeshaan tagaysaa colorka ka bedeli cagaarkaas ka dhig haye balan ku noqono marka bay aan dhahno interface ka ilaaliya xoogaa ka hor dhacaya zoomka xoogaa ka hor dhacaya marka maadaama xoogaa ka hor dhacay fal xumo noqonaya marka zoomku la soo dhaweeyay ka bacay inuu yimaado haye interface ka ilaaliya files ka ilaaliya oo defender oo computer ku marka starting take see muuqaalkan uga dhigi karnaa muuqaal oo meeshaan rabna gashan karno oo video diyaarsan ah intaadan muuqaalka aadin talada aan ku siinaya waxay tahay softwarekan markuu shaashada computerka duubo wuxuu directly qaadanaya marka hore resolutionka size-ka computerkaaga haddii computerkaaga full HD ka yar yahay oo 1920 plus 1080 uu ka yar yahay wuxuu qaadanayaa resolutionkaas ayuu muuqaalka ku sameynaya laakiin waa ka bedeli kartaa halkan u fiirso iconkan 38 meesha ku qoran tahay ayaa click siinayna haye kadib waxaan taabanaynaa oo project setting ayaa taabanayna haye saa ujeeda halkan waa 1080 laakiin falaartan haddaan furno waxaa ka heli karnaa halkan computerkeena resolutionkiisaan ka heli karnaa laakiin resolutionka anagaa sameynaysa sidaa ujeeda markaan dhaqaajiyo hadda resolution kala duwan buna tusaya oo marka hoos kor aado waxyaalo kala bedbedelan oo kala gooniyo tusaya oo qaar mobile yahay waxaasoo tusaya marka uma baahni waxaan rabnaa kaliya waa inaa magaranaysaa resolutionkaas 1920 oo muuqaal caadi meesha raba la geysan karaa inaan samaysano muhiimkan waa intaas boqolkiiba 38 laga rabo halka inay tahay si size-kan u heshid haddii halka boqolkiiba 38 ku ahayn waxba ka khaldan waa inaa saxdaa marka muuqaalka inta waa inta kan qaybtan soo maartay resolution la bedelayo waa intaas waxa soo hartay see video uga dhigi karaa videogan oo render ugu sameyn karaa oo muuqaal caadi la daawan karo waxaan tagaynaa halkan fiirso meeshan share ay ku qoran tahay tagaynaa kadibna waxaan dooranaynaa file local file click aan siinaynaa waxaana loo furayaa filekan saa ujeeda halkan resolution keeni ayaa ka muuqda 1920 plus 1080 haye next aan dhahaynaa marka wuxuu ku sameynayaa oo ku macnaha inuu format ahaan wuxuu ku format gareynayaa media player-ka ku jira computerkaaga haddaa Windows player isticmaasho media player isticmaasho ama video player isticmaasho kaas ayuu ku sameynaya format ku sameynaya waa kaas haye next aan sii dhahna waa ogolahay in kaas iyu kiciyo haye next kalaan sii leenahay haye current-ga oo resolution current size ku shaqeynaya waa midkaas customer-ka waa kan computerka uu ku maartay oo soo qaatay computerka resolution uu leeyahay size resolution uu leeyahay ayuu soo qaataa custom uu yahay laakiin current-ga hadda inoo shaqeynaya waa kan haye next side halkan wuxuu ku leeyahay loogadan ma raacinaysaa oo looga ku darsanaysaa
maya aniga uma baahni muuqaalkayga looga in lagu daran leeyahay meeshan tig ha saar meesha hadday tig kaa saarantay tigta iska qaad haye next sii dheh muuqaalkaaga xageen kugu ridaab leeyahay macnaa folderkee ku dhigaa waxaan leeyahay iida igu halka igu qoran iida halkan magaca u bixinaya magacaas waxaan dhahayaa darsiga saddexaad baan leeyahay darsiga saddexaad aan qoraya bas haye next finish aan dhahayaa marka saa ujeeda halkan wuu bilaabay muxuu soo qoray rendering project video rendering sidaas ayuu muuqaal ugu bedelay muuqaalkan wuxuu noqonayaa muuqaal meesha rabtaa geysan kadib qaybtan saddexaad intan ayay ku egtahay